iyadoo muddo 2 sano oo soo jiitamayay muranka u dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada dalka salkana ku haya arrimaha xajka ayaa shir jaraa'id oo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug oo ku qabtay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta Galmudug Cabdishakuur Macalin Ciise Albadri ayuu kaga hadlay aragtida dawlad goboleedka Galmudug waxaana uu sheegay in wasaaradahan iyaga wax taa laga gelin dadka loo qoonteeyay ee xujayda ee sanadkan ka xujinaya deegaanada Galmudug wuxuuna sheegay go'aanka ay soo gudbiyeen inuu yahay mid ku yimid la tashilaan aan lagala tashan wasaaradihii mudnaa in lagala tashtiyo dawlad goboleedyada wasiirka ayaa intaas ku daray in dawlad goboleedka Galmudug marnaba aysan raali ka ahayn muddooyinka ugu dambeeyay howlaha kala duwan ee wasaaraddu ay waday wuxuuna sheegay in loo baahan yahay hadii la doonayo arrinta wasaaraddu soo saartay in dhaqan gasho inta laga geliyo guud ahaan wasaaradaha arrimahan u qaabilsan dawlad goboleedyada ayadoo arrintaas xajku ay taagneed oo ay sidaas u cakiran tahay walina aanan haynin ayaa haddana dawladda Soomaaliya isla yacni si gaara wasaaraddu waxay ku dhaqaaqday tilaabo kale tilaabadaas oo ahayd magacaabistii guddigii tartanka xajka ee shirkadaha taas oo ku timid hab aan laga wada tashan oo aan waafaqsanayn hanaanka yacni wadaaga iyo wada tashiga ee federaalka ayadoo Galmudug haba yaraatee aysan wax tala iyo tusaale ku lahayn aysana waxba ka ogeyn bay wasaaraddu go'aan iska qaadatay oo ay ku dhawaaqday guddigaas tartanka iyo kala saarista shirkadaha u tartamaya arrimaha xajka sidaas aawadeed waxaan cadeynaynaa dawlad goboleedka Galmudug oo si cad u cadeynaya in wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee Soomaaliya aysan ka talagelinin in arrintaas aysan waxba kala socon Galmudug in aysan guddigaas aysan u arag guddi sax ah oo ka shaqeynaya maslaxada in maaragtay aan u aragno mar kale in wasaaraddu ay ku talaabsanayso qaladaad يعني joogto ah oo aan u adeegaynin maslaxada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo hanaanka federaalka ee lagu heshiiyay waxaana yacni leenahay arrintaas laga waantoobo sidoo kale waxaan leenahay shirkadaha arrintaas yaan lagu kadsoomin ma ahan arrin yacni loo dhan yahay ma ahan arrin laga tashaday ma ahan arrin u adeegaysa maaragtay maslaxada dalka iyo dadka iyo diinta waxaana leenahay walaalayaal Soomaaliya waxay wax ku gaari kartaa isqadarin iyo in la isxaq siiyo iyo in dastuurkii lagu heshiiyay la ilaaliyo oo la raaco Soomaaliya waxa meeshaan dhigay anaa tashaday anaa sameynaya weeye waadna aragtaa natiijadii waxa ay noqotay saas aawadeed waxaan rajaynaynaa wixii hore in wax laga barto wixii qaldamana la soxo ummadda Galmudug iyo wasaaradda awqaafta arrimaha diinta wakiil uga ahna waxay u fadhisaa qoondadii xajka waxayna yacni ku baaqaysaa in la soxo arrimaha taagan ee qaladaadka ah ee wasaaradda ka dhacaya waxaa muuqanaysa in haddeer saacadihii ugu dambeeyay wasaaradaha awqaafta ee dawlad goboleedyada qaarkood ay muujiyeen saluuga iyo walaaca ay ka qabaan arrinta ay ku kacday wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya waa tilaabo kale oo muujinaysa oo marqaati gelinaysa maaragtay habka wada tashi la'aanta ah habka yacni anaa iri iyo maaragtay kaliya taliska calaamaadkiisa leh ee ka muuqanaya dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda awqaafta maaragtay arrimaha diinta hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo cabasho tan la mid ah ay ka soo yeertay saacado ka hor dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo iyana sheegay inaysan arrintaas sida loo qoondeeyay aysan ku qanacsanayn khilaafkan in muddo taagan u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada ayaa u muuqday mid siyaabo kala duwan u saameeyay guud ahaan howlihii ka socday dalka Cabdi Jamaal Macalin Axmed Kalsan TV Dhuusamareeb